madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ku joogay magaalada Berbera ayaa saaka waxa uu booqday xarunta haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera halkaas oo kulan gaar ah kula qaatay maamulka haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera maareeyaha haamaha kaydka shidaalka Axmed Ibrahim Cabdi ayaa ka warramay kulankaasi farxada maanta oo bisha November ay tahay 20 in halkan ku soo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi halkan waxa la joogaa kooxdii laabka oo ah nimanka farsamo yaqaanada oo ah laabka iyo madaxdoodii halkan wada joognaa waa gruubkii u horeeyay waxaan rajayn doonaa inay qayb weyn ka qaadan doonaan soo dhaweynta madaxweynaha. dhinaca kale madaxweyne Biixi waxa uu booqday xarunta dawladda hoose Berbera iyo xafiiska barsaabka gobolka waxaanu kulamo gaar ah la qaatay maayirka magaalada Berbera iyo barsaabka gobolka Saaxil waxaanay guud ahaanba uga xog warameen xaaladda guud ee gobolka Saaxil. waa Xamse Jaamacere telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada Berbera.